arrintan waxay dhalisay hadalhayn xoog leh waxaase la sheegayaa inay u baahan tahay ka fiirsasho marka laga hadlayo si gaar warbaahinta ayaa looga digayaa inay ku degdegto hal dhinac oo ka mid a dhinacyadiis haya inay warbixin ka qaadato marka laga hadlayo dacwadan maxkamadda sare ee dalka xisbigii meelo qaran ay geeyeen shacabka soomaaliyeed ayaa sidaas si la mida ka hadalka arrintan ee baraha bulshada lagula taliyey inay aada uga fiirsadaan maxamed maxamuud cadde waa rugcadaa saxaafadeed oo arrimaha saxaafadda muddo dheer ku jiray ayaan weydiiyey markii ay xaaladdan joogto waxa loo baahan yahay. waad mahadsantihiin kulmiye iyo dhegeystayaashaba. arrintan marka ugu horeysa waa arrin uguba marka la fiiriyo dimuqraadiga curdanka ah ee soomaaliya ka jirta in mucaaradka uu dacwad ka gudbiyo mid ka mid a saddexda hay-adooda ugu waaweyn ee dalka ka jira ee ah fulinta. nuxurka dacwadani iyo waxa ay ku saabsan tahay ma aha midda aniga aan ka hadlayo, waxay u taallaa qareennada xisbiga soo gudbiyay dacwada iyo xukuumadda qareennada difaacaya iyo guddoonka maxkamadda sare. saxaafadda looma ogola in ay ka hadasho dacwad ka furantay maxkamad. ciddii ka hadasha dacwad maxkamad ka furan cawaaqib ayay mutaysanaysaa, sababtoo ah dacwadan maxkamadda sare la geeyey waa arrin xasaasi ah oo taabanaysa amniga qaranka soomaaliyeed. mana aha in si kheyr mas-uulinimo ah ama kutirikuteen ah dhegeystayaasha iyo shacabka loogu sheego wax aan xaqiiqo ahayn, maadaama qaanuun laysku haysto oo dadkii qaanuunka ku takhasusay ay tahay inay arrintan kala furdaamiyaan. gaar ahaan suxufiyiinta baraha bulshada wax ku qora waxaa la rabaa arrintan inay ka feejignaadaan. raadiyaasha iyo telefishinada waxa ay leeyihiin shati ay ku shaqeeyaan, ammaanka qarankana wax ma yeeli karaan, waa inay u hoggaansamaan qawaaniinta dalka u yaalla. ruwanda raadiyayaal ayaa ka qayb galay markii uu xasuuqa waddankaasi ka dhacayay, duruus ayaa laga bartay. marka taa inay soomaaliya ka dhacdo aniga fili maayo. waxaa laga yaabaa marka su-aashan aada i weydiisay ee ah dacwadan la gudbiyey, nuxurka dacwada ka hadli mayno, laakiin waddankeenna waxaa ka jira 3 hay-adood: fulinta oo xukuumadda uu ra-iisul wasaaraha ugu horeeyo iyo madaxweynaha oo kulligood maareeya ay mas-uul ka yihiin; qaanuun samaynta oo inta badan aada u taqaanaan xildhibaanada ku jira baarlamaanka oo qaanuunada sameeya; iyo garsoorka oo ah hay-adda saddexaad ee ugu awood weyn dalka. dacwadan marka hadda waxaa is haysta, waxaa la dacweynayaa fulintii, xukuumaddii sidee go-aankan ku qaateen, yaa mas-uulka ah, qaanuunada ka qoran arrimahan ma la jebiyey mase la jebin, waxaasi waxay u taallaa maxkamadda. laakiin waxaa sideedaba nadiif ah in aan aragno inay soomaalidii ka gudubtay gacanka hadalkii oo ay hadda u gudbeen ilaalinta qaanuunka iyo in la isdacweeyo. waa arrin mudan in la tixgeliyo oo dadka dhegeystayaasha iyo shacabka soomaaliyeed ay tahay in ay soo dhoweeyaan. haddii aanan macluumaad faahfaahsan aanan ka hayn dacwadda saxaafadduna aan loo ogolayn in ay faahfaahiso ama ay falaqayn ka samayso qaanuun ahaan, dadweynaha soomaaliyeed eena dhegeysanaya maxaan la wadaagi karnaa oo ku saabsan kiiskan dacwadda ah oo ay gudbeen xisbiga? hay-adda dalka ugu sarreysa marka ugu horeysa waa xubnaha baarlamaanka. baarlamaanka ayaa doortay madaxweynaha, madaxweynahana waxa uu doortay guddoomiyaha maxkamadda sare, waxaana ansixiyey baarlamaanka. waajibaadka guddoomiyaha maxkamadda sare waxa weeye in uu ilaaliyo qaanuunka dalka u yaalla.
qaanuunka ayaa cid walba ka sarreeya. waxa weeye sida garsooraha kubadda cagta labada kooxoo cayaaraysa uu garsooraha ugu yahay, ayaa guddoomiyaha maxkamadda sare waxa uu garsoore u yahay qaanuunka ruuxiisa inuu ilaaliyo. ciddii dacwad soo oogta inuu dacwadaas ka aqbalo, dacwadaas uu waajibka ka saaran ka guto, uu baaro, uu waraysto xubnaha ay qusayso, kadibna qolada dacwada keentay faahfaahin dheeraada ka urursado, qolada la dacweynayo difaacooda uu dhegaysto, kadibna uu go-aan gaaro. inta uu waajibaadkaasi ku dhex jiro lama rabo inay cid kale arrimahan soo faragashato. tusaale, fulinta iyo garsoorka waa siman yihiin, inkasta oo garsoorka mas-uulka ugu sarreeya uu madaxweynaha magacaabay, haddana baarlamaanka ayaa ansixiyey. waxa weeye guddoomiyaha maxkamadda sare shaqadiisa ma aha inuu dowladda xagga qaanuunka kala taliyo. dowladdu waxay leedahay tallaabo kasta oo ay qaado inay qaanuunka fuliso. alaaba dowladaha qaanuunka ma jebiyaan, waxaana u qaabilsan ilaalinta qaanuunka ama dowladda in qaanuunka lagu ilaaliyo xeer ilaaliyaha guud. isagaana hogaaminaya difaaca dowladda ee eedayntan maxkamadda loo soo gudbiyey ee ka dhanka ah fulinta. guddoomiyaha maxkamadda sare intuu waajibaadkiisaas ku jiro, mas-uuliyiinta ugu sarsareeya ee dowladda ama fulinta lama xiriiri karaan guddoomiyaha maxkamadda sare, dacwadanna kalama hadli karaan. waxa weeye haddii ay kala hadlaan, waxa weeye koox ka mid a kooxdii kubadda cagta cayaaraysay oo garsoorihii kala tashatay xeeshii ay goolka ku dhalin lahaayeen. haddii uu guddoomiyaha maxkamadda sare ku fashilmo waajibaadka loo igmaday, waxay noqonaysaa garsoorihii oo arkay kubadda yacan oo goolka afkiisa taagan kadibna uu ku laaday. taana waxay noqonaysaa in baarlamaanku uu qaraar ka qaato, shaqadiisana uu ku waayo. qaanuunka qof jebin karta ma jirto. qof walba shaqaa loo igmaday, shaqadiisa ayuu leeyahay. laakiin inta badan xukuumadaha laguma yaqaano in ay jebiyaan qaanuunka. tusaale, waddankan Britain ra-iisul wasaaraha ayaa si kumeel gaara u joojiyey fadhigii baarlamaanka waddankan. maxkamad ayaa la geeyey, maxkamadda waxay xukuntay in ay khaldanayd tallaabada uu qaatay ra-iisul wasaaruhu. baarlamaankiina dib ayuu shaqadiisa ugu soo noqday. waxaad arkaysaa sida maxkamadda sare ay arrintaa oga baaraan degtay, go-aanka ay gaartay, ra-iisul wasaarihii iyo mucaaradkiiba ku qanceen. sidaasoo kale ayaa la filayaa in go-aankan uu noqdo mid daah furan, si mas-uuliyada ku jirta oo u guto guddoomiyaha xilkiisa. dowladdana ay arrintaa waxaa u qaabilsan xeerlayaha guud iyo qareenadeeda ay ayaga uga dambayso. mucaaradkana waxaa matalaya qareemadooda. saxaafadda waa korjoogto, waxaa socdo unbay ilaalinaysaa. wixii dhinac walba uu la soo shir tago unbay sheegi kartaa, moogiye waxa maxkamadda ka socda ma aha mid ayada u taalla. waaya marka maxaa la gudboon dowladda hay-adaheeda, gaar ahaan baarlamaanka iyo maxkamadda sare iyo hay-adda fulinta ee dowladda, muddada ay socoto kiiskan dhegaysigiisa iyo howsha maxkamaddaba oo xisbigan dacwadda iyo gudbiyan ku saabsan, waxyaabaha la gudboon waa maxay? su-aashaas waa mid fiican weeye. baarlamaanka, fulinta iyo garsoorka howlahoodu waa kala duwan yihiin. cid walba waxaa waajib ah in shaqadeeda loo daayo. dacwad markii maxkamadda la keeno, dad waxaa jira shaqadooda ay tahay qaanuunka. dadkaas ayaa waajibaadkooda ka gudanaya. shakhsiyaadka ka tirsan fulinta ee ugu waaweyn sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kale, waxa weeye ayagay dan ugu jirtaa inay qaanuunka dhowraan. dacwaddanna inay marnaba ka hadlaan
ma aha. wax allaaliya wixii ka darajo hooseeyana warkooda badaa. qofkii maxkamadda intay socoto ka hadla oo ka tirsan fulinta cawaaqib ayuu la kulmayaa. waxayna noqonaysaa in la xiro ama ganaaxa culus lagu soo rogo. baarlamaanka maadaama uu yahay hooyada hay-adaha kale, mas-uuliyiinta ka tirsan baarlamaanka ama xildhibaanada waxaa loo baahan yahay inay og yihiin waajibaadkooda, in aynan ka hadlin dacwad maxkamad dhex taalla. xasaanad baad leedahay, laakiin xasaanadaada ma soconayso haddii aad dhex gasho arrin taabanaysa ammaanka dalka. tan kale, shaksiga dacwadan soo gudbiyey ama xisbiga dacwadan soo gudbiyey, shakhsiyaadka uu mathalayo ma aha shakhsiyaad caadi ah. waa mas-uuliyiin hore oo dowladda ka tirsanaan jiray ama hogaamin jiray. marka waxaa loo baahan yahay in waxyaabahaas xasaasiyaadka ah laga fogaado oo qof walba shaqadiisa iyo waajibaadkiisa ku koobnaado. xildhibaano fara badan oo waxaa jira aanan aqoonin xilka loo igmaday, meeshana waxa ay ku fadhiyaan mas-uuliyad, laakiin mas-uuliyaddaas ma yaqaanaan. laakiin haddii ay galaan waajibaad ayaa ka imaanaya arrintaa, in laga joojiyo shaqada, in lala xisaabtamo sababta ku kaliftay in dacwad ka socota maxkamad uu faraha u gashto, khalkhalna u geliyo ammaanka dalka. waxaa ku haray garsoorka iyo mas-uuliyiinta ugu sarreeya. waxa weeye markan baa looga baahan yahay doorkooda inay muujiyaan inay yihiin hay-ad istaahisha in ay ka kor joogtayso, xukunto, garsoorto arrimaha qaanuunka, iyaga oo tixgelinaya qaanuunada waddanka u qoran, ayagoo aanan cidna u garbin, cidna u aabayeelin, cidna la xiriirin, kana heebaysan awood kasta uu qofkaasi leeyahay. ayagana waajibaadkooda waa cad yahay. saddexdaasi hay-adood iyaga oo wada shaqaynaya ayaa qolo walba shaqa leedahay. shaqada garsoorka waxa weeye go-aamadii baarlamaanka uu waddankan qaanuunka uga dhigay in la ilaaliyo. fulintana waxaa dan ugu jirtaa inay cid walba qaanuunka ilaaliso. mararka qaarkood qaanuunku waa la jebin karaa si aan ku talagal ahayn, laakiin xukuumadaha inta badan qaanuunka ma jebiyaan. tusaale ahaan, kayska hadda ku furan madaxweynaha Maraykanka waxaa wada Congress-ka. waxaa la leeyahay madaxweynihii ayaa jebiyey dastuurkii iyo xeerarkii loo igmaday. sidaa daraaddeed waxaan anba qaadaynaa in aan la xisaabtanno. waxay wareysanayaan cid allaale ciddii howlahaas u igmanayd oo shaqo ku lahayd, waxayna dhegaysanayaan wax allaale wixii markhaati ah. hadda kayskan ma ku cadda, mana ogi cidda uu ka dhanka yahay, laakiin garsoorka waxaa looga baahan yahay inay waajibaadkooda gutaan, dadka kalena ay ku xishmeeyaan shaqadooda. maxamed maxamuud cadde oo ah saxafi madaxa bannaan oo rogcadda ah oo ka hadlayay dacwadda ay gudbiyeen xisbiga himilo qaran ee Soomaaliya iyo kaasi ah saaxiibayaalkeen Muqdisho ayaad nagala socotaan.